khilaafka golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya. Aqlabiyadda golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa baaq dheer u diray golaha wakiilada Somaliland oo ay ugu baaqeen inaanay ansixin miisaaniyad sanadeedka golaha deegaanka Gabiley ee 2022 taasi oo ay ku sheegeen inaanay ahayn mid dhaqan gala. Axmed Ciisood Axmed oo ku hadlaya afka aqlabiyadda golaha deegaanka Gabiley ayaa fariin dheer u diray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Axmed Hayaan Ilkaase Universal TV Gabiley miisaaniyadda dawladda hoose iyaga ansixiya u fadhiista ka dooda dabadeedna wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhaqan gelisa. miisaaniyadda dawladda hoose ee Gabiley ee ku jirta miisaaniyadda qaranku ma aha miisaaniyad dhaqan gala. marka golaha waxaan ka codsanaynaa in aanay ansixin miisaaniyadda intaanu miisaaniyadda 2022 u fadhiisanayno ee aanu soo ansixinayno. codsigaasaanu golaha wakiilada u diraynaa. xildhibaan Axmed Ciisood Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay waxa ogeydeen in wasaaradda arrimaha guduhu ay joojisay kalfadhiyada aan caadiga ahayn. taasi waxay keentay in kalfadhigii caadiga ahaa ee golaha deegaanka oo ay ahayd inuu qabsoomo 4 Disembar maanta oo ay 28 bisha tahayna inaanu qabsoomin. sababta keentay waxa jirtay warqad baanu qornay anagu maayirka anagu xildhibaanada golaha deegaanka waxaanu ka codsannay in kalfadhigii la qabto waa kii caadiga ah hadda ee lagu shaqeynayay golaha deegaanka ku shaqeynayay kamu soo jawaabin maayirku warqadii barasaabkaanu warqad u qornay wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu warqad u qornay wasiir ku-xigeenkaanu warqad u qornay aanu leenahay kalfadhigii caadiga ah la qabto ilaa iyo imika wax ka soo noqday ma jiraan. Axmed Ciisood Axmed oo ku hadlaya afka aqlabiyadda golaha deegaanka Gabiley ayaa fariin dheer u diray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan halkan uga dirayaa fariin madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay horta mid waan ku leeyahay oo sida aad ugu doodayso in xeer foodhi shaqeeyo ayaa waxaanu jecelnahay inuu xeer number 23 uu shaqeeyo madaxweyne oo de xeerarka dalku ay ku sinaadaan. waxaanu ku doodaynaa waa sharci iyo xeer. waxaanu maayirka ka haynaa inuu leeyahay sidii kalfadhiyada caadiga aan caadiga ahayn la iga joojiyay ayuu madaxweynuhuna kalfadhiga caadiga ah uu u joojiyay. ma garanayno waxaan de ku sii shaqeynaa madaxweyne waxa weeyaan talaabo sharci aanu qaadi doonaa haddii maalmaha soo socda aanu kalfadhiga caadiga qabsoomin. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaase Universal TV Gabiley.